Hello everybody, waxaan u sheegayaa xasan sheekh maxamuud maadaama aan ku mucaaraday waxaa la ii sheegay inay dharcad i raadinaysay oo la i dili gaaray oo xoriyaqoolka la diidan yahay. Soomaaliya kama jirto freedom of speech, freedom of expression and freedom of religion. Religion dhibka ma qabno, hal diinaan wada haysanaa, laakiin freedom of speech iyo freedom of expression kama jiro Soomaaliya. Xasan sheekh maxamuud wuxuu ii soo diray dharcad, waxaana la ii sheegay wiilo soo arkay ay wareysanayeen meeshaan deganahay ayaa ii soo sheegay in dharcad i raadinaysay. Laba booliisana waan arkay oo jidka fadhida meeshaan kofeega ka cabayay, coffee house ayaan kofee ka cabayay. waxaan arkay laba booliis oo fadhida maalinta ku xigto. kadibna waa ticket baan soo jartay, waan ka soo cararay, waxaan imid gaalkacyo. hadda gaalkacyaan ku suganahay, amnigaygana hoteelka aan ka deganahay gaalkacyaa lagu sugayaa. Aljasiira aan ka deganahay. ani nin siyaasi ahaa oo musharax madaxweyne ah, kadibna raadsaday prime ministerkii. hadeertaana baalkii caburun ayuu xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare ay ku hayaan in la hadlo. marka kama jiro Soomaaliya freedom of speech, freedom of expression. kadibna isla markiiba waxaan soo jartay ticket si aan u imaado Puntland. hadeertaana waxaan ku suganahay gaalkacyo Puntland ee gobolka Mudug. amnigaygana meeshaas ayaa lagu dhowraa. xamar amnigayga waa lagu dhowri waayey. marka sidaas ula socda. waxaan ogeysiinayaa Soomaaliya oo dhan iyo taageerayaashooda dhan xasan sheekh maxamuud inuu igu soo dalbaday nabad sugid i raadinaysay. kadibna markaan maqlay, aniga baabuurkaygaan la cararay, baabuurkaygaan garaashka iska soo dhigtay. kadibna hoteelkaygaan ku dhuuntay, hoteelkayga single room kalaan u guuray si aan uga dhuunto. kadibna gaalkacyaan ka soo degay. marka airportka kasoo dhoofayay xataa waa is ilaalinayay inuu nabad sugid xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare ay ii soo diraan. marka may ogola in saxaafadda laga hadlo. saxaafaddana xor maaha. anigana mucaarad baan ku ahay dowladda federaalka. dowlad federaal uma aqaan, waana kasoo horjeedaa. mucaaradaan ku ahay. mucaaradnimadeedana gaalkacyaan ka wadale iyo hoteelka aan deganahay Aljasiira.